warar dheeraad ayaa ka soo baxayo weerar madaafiic dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen habeenkii xalay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Tiro madaafiic ayaa lagu soo waramayaa in ay al-shabaab ku gumeen degmada Aadan Yabaal, waxaana la sheegay in madaafiicdaasi ay ka soo tuurayeen dagaalamayaasha al-shabaab duleedka degmada Aadan Yabaal kaasoo ay la beegsanayeen gudaha degmadaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo xiriir aan la sameeyay oo ku sugan degmadaasi ayaa ii sheegay in wax khasaare aysan geysan madaafiicdaasi ee al-shabaab ay ku soo gameen. Dhinaca kale waxaa jirtay in madaafiicdaasi markii ay ka soo dhaceen duleedka degmada Aadan Yabaal ay diyaarado dagaal ay yimideen goobta, halkaasoo ay ku duqeeyeen xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa martigelinayo maalmihii lasoo dhaafay weerarada al-shabaab ay ku qaadayaan fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin gobolkan Shabeellaha Dhexe, kaasoo inta badan muddooyinkii lasoo dhaafay la dareemayay weeraradaasi dagaalamayaasha al-shabaab ay ka fulinayaan deegaanada gobolkan Shabeellaha Dhexe ee fariisimada ay ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. saaxiib aabba kula hadlaya wiilkaygiiyow ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaneys anida kugu daray waa isbitaalka kaliya ay ku guuleystay 5 sano oo isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya. Soomaali Suudaneys Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega